intii dagaalka ceergaabo socday waxa dhacay dhac boob iyo bililiqo waxaana la burburiyey hanti dad gaari lahaayeen kuwaasoon waxba ku lahayn colaaddii ceergaabo ka dhacday deegaanka ceeldhuluc waxay ceergaabo u jirtaa 11 kilomitir dhanka bari ayayna kaga beegan tahay magaalada ceergaabo waxaana degan beesha Madhibaan oo ka mid ah beelaha la haybsooco ceeldhuluc waxay ka mid tahay meelaha dagaalka ugu adag ku dhex maray ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maleeshiyaadkii soo weeraray ceergaabo dadka halka degana waxay dhibanow yihiin ciidankii madaniga ah ee SSB iyo G36 ee madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland qarameeyay waxaa la gubay guryahoodii waxa la burburiyay masaajidkii lagu cibaadeysanayay iyo sidoo kale malcaamadii carruurtu wax ku baranaysay waxa la qaatay wax kasta oo wanaagsanaa sida soolartii malcaamadda roogii masaajidka albaabadii iyo daaqadihii malcaamadda iyo masaajidka kuraastii ardaydu ku fadhiisan jirtana waxa laga dhigay xaabo dabka lagu shido halkan aan imika joogo waa malcaamadii iyo masaajidkii deegaanka ceeldhuluc masaajidkan iyo malcaamadan waxa dhisay dadka qurbo joogta ah ee deegaankan halkan waxa degan beesha Madhibaan oo ka mid ah beelaha degan magaalada Ceergaabo halkan waxa saameeyay xasaradihii iyo dagaaladii ka dhacay magaalada Ceergaabo soo kala ka maanta waxa la jooga macallinkii malcaamadda dhigay bal waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo sida ay u saameysay xaaladda colaadeed malcaamadii iyo masaajidkii iyo deegaankaba wadhowahay walaal mubaarray soo waa kaaga mahad celinaynaa booqashadaad noogu timid runtii walaal laxaad khasaare laxaad baa ka dhacay deegaanka colaadihii dhacay gobolka ka dhacay awgood deegaanka ceeldhuluc waa meelihii la isla soo gaaray dagaalku ka dhacay kadib madrasadii hadda waa tan iga dambaysa daaqadihii khasaara soo gaaray iyo ardaydu waxay ku fadhiisan jireen kuraasidii iyo sidoo kale masaajidkiina daaqadihii iyo albaabadii baa waxyeello soo gaadhay daaqadii qayb ka mid ah roogii isaga laftiisa waa la qaatay sidoo kale solartiisii oo la fuqsaday waxbarashadii oo istaagtay khasaarahaas soo gaadhay intaa kaliya kuma eka masaajidka khasaaraha soo gaadhay iyo malcaamadda sidoo kale guryihii u dhawaa oo dhan khasaaraha soo gaadhay qaybtood waa la gubay laba guri xalka ku yaala waa la gubay dad baa la qabadsiiyey taangiyadii biyaha lagu shuban jiray qaybtood waa la qaatay kiyaastii xoolo dadku ka cabeeyeen intii hore halkan iyada laga cabeeyaa timi maantana waa ka khasaare laxaad laba soo gaaray ma shaqeynayo qasaabkii baa la jabiyay bahaladii kaagagii oo way dadku jabinta dadku bal qaadashadii way fahaneen jabinta maxay ka faa'iideeyaan markaa wani jabintaas waxay ka faa'iideeyaan kalo gacantii geysateen baa la rabaa halkan aan imika dul taaganahay waa keestii malcaamadda ay ardaydu ka cabi jirtay halkan waa laga cabi jiray imika waa dunsan yahay laakiin biyuhu waxay uga iman jireen riigii ma shaqeynayo sidoo kale keestihiina ma shaqeynayo isaga laftiisa malcaamadda iyo masaajidkaba waxa ku qoran G36 waana ciidankii madaniga ahaa waxay baabiyay wax kasta oo wanaagsanaa oo ahaa kaabayaashii bulshada oo ceelkii malcaamadii iyo masaajidka ahaa intuu waa baabacsan yihiin deegaankana maanta ku suganahay waa deegaankii ceeldhuluc waa deegaankii gaboonyaha khasaaro weyn baa anaga dhulkayga naga soo galay waa kaariigayga laga cabeeyay xoolo ka cabeeyeen oo dadku ka cabeeyeen oo wax walba ka cabeeyeen waa ka saa loo burburiyay saa loo galay waana intii dagaalku dhacay baa la burburiyay saa loo galay dhulkayga waxna waa la gubiyay waxna waa la baabiyay dhulkayga saa loo galay saana loo baabiyay waana riigii dhamaay laga cabeeyay macaamadii macaa wax walba waa la jijabiyay qayb ka mid ah gidaarka masaajidka waxa ku qoran SSB G36 iyo lambarada halkan waa masaajidkii Ilaahay waxaanki lagu cibaadeysanayay soo kale ardayduna wax ku baran jirtay doortaan dhibaato ka dhacday oo colaadii ceergaabo ka dhacay siyaareereheeda tusaalaha guriga ugu yaro jeexasaa gubtay aga ka shaqeeyay fiid waa ka shaqeeyay ayaan colaad hortiro beertal ku beerisay riigaasi waa la burburiyay motorkan wala ka qaato waa la bilqaystay jaajka waa la jaban yahay oo goobi maarada kala jaban tahay oo daaqadaheeri iyo baabareedo maqan yihiin jaajka gurigiisa soo rafta la ka qaatay goobta cibaarada ugu muhiimsan way la ku baxsan marka wax dhacaan marka insha Allah wasaaradda iyo xukuumadda Soomaaliland inay muhiimadda ceelka saaraan iyo tabta si wax u gaareen intaas insha Allah u sheeynaa haddaan roobka yarina diin daawad xun baa ka jirtay oo aan roobkaas diinahay xareed ku ridina dadkuma waa joori kareen oo wala ka si baraka labaad baa dhacay dadkuna waa qaxeen qixii waraabtu waa la bilaqastay guriyii waa la gubay dad dib u soo noqon goobihii oo cidla oo banaan oo sida yihiin aan xabarool waxbarasho ahayd arday soo saarisay
ardaydaasoo aan tartan ugu qaban jiray kal hore maantana waa aragtaan khasaaraha soo gaadhay burburka soo gaadhay malcaamadda gudaheedii agabkii ciyaal ku fadhiisan jireen iyo dhammaan asaasiyaadkii waxbarasho maanta kama jiraan deegaankii Ceeldhuruc waxaa ka muuqda jajab quraarada aad fara badan baa meesha dhex yaala quraaradaasi waa daaqadihii aluminiumka oo jajabay oo la jajabiyay khasaare loo geystay markii hore macaamadan ma dawladda idin dhistay mise maya dawladdu ma dhisin walaalo muxsiniin oo qurbo jooga baa dhisay oo deegaanka u dhashay nooma shaqeeyo tuubooyinkii waa la gurtay mitooradii waa la gurtay wax walba waa la gurtay dee waa kuwa arrigayga noo shaqaynaya dad iyo dunya laga cabayo waa kaa dalkayga sidaa loo baabi'iyey gamoonyaha waa ka sidaa loo baabi'iyey masaajidka iyo malcaamadda halkan ka dhisan ma ay dhisin xukuumad waxaa dhisay mid ka mid a qurbo joogta deegaanka oo lagu magacaabo Cabdi Cilmi Geedi kaasi oo ku nool waddanka Australia ka deegaanka oo baahi badan u qabay ayaa in badan ay ku celcelinayeen waxaa la dhisay masaajidkan malcaamadan iyo sidoo kale riig